Arreso Qiro Channel. like subscribe bofsi gacal iyo sukeeyaba guurkiina lagu fara waxaa saacadihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday meherka qarsoodiga ah ee Manaal iyo Shiine Culey taas oo maalmihii ugu dambeysay iyo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu soo sheergareeyay muuqaalo romantiga kuwaasoo ay iska soo duubeen Shiine Culey iyo Manaal waxaana la arkayay iyaga oo si weyn u dabaaldegaya waxaana guud ahaan taageerayaasha Manaal iyo Shiine Culey ay hayeen kuwa hambaryo kala duwan hawada ugu soo marinaya maadaama Shiine Culey iyo Manaal uu meherkooda dhacay waxaana waayadii ugu dambeysay Manaal iyo Shiine ay hayeen laba shaqsi oo isku xanto taas oo hore uu sheegay in Shiine Culey uu u yahay Manaal abti azaate dadku waxay ku tilmaameen in abtigaasi uu yahay abti xabiibi oo damac guur iyo mid gayaanba uu dhex maray Shiine iyo sidoo kale Manaal taasna ay keentay in muuqaalo romantiga kuwa jacayl ay waayadii ugu dambeysay isla soo duubaan dadkuna waxay hayeen kuwa uga sheekiyay in meherkooda hore uu dhacay azaate Manaal iyo Shiine Culey arintooda waxay yihiin kuwa mar walba baraha bulshada soo geliya muuqaalo gabiyahanba maldahan oo aanay ku xaqiijinaynin nolosha dhabta ah ee Shiine iyo sidoo kale Manaal ee waqti xaadirkan ay wadaageen azaate dadka badankooda ayaa aaminsan in Shiine iyo Manaal ay yihiin laba shaqsi oo isqaba meherkooduna oo hore u dhacay waqti xaadirkana ay tahay in hambaryadoodu ay tahay waajib waxaana baraha bulshada muuqaalada kala duwan ay soo diraan ee ku saabsan Manaal iyo Shiine Culey ay tahay mid si weyn taageero buuxda ay uga heliyeen dadkuna ay ku tilmaameen Manaal iyo Shiine in ay yihiin kuwa waqti xaadirkan saameyn leh maadaama arintooda ay tahay mid dib u soo laabatay arinta Shiine Culey iyo Manaal waa mid markasta bulshadu ay falanqeyso kuna tilmaamto in arinta abti xabiibi ay rumowday maadaama waqti xaadirkan muuqaalada goosgooska ah iyo sawirada qarsoodiga ah ay soo wada galayaan ee romantiga ah Shiine iyo Manaal ay tahay waqti xaadirkan mid tusaale iyo sidoo kale cadeyn u ah in Manaal iyo Shiine Culey ay waa horeba aqalgaleen waxaana arintooda yahay mid saacadihii ugu dambeysay bulshadu ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen kuna tilmaameen arinka Manaal iyo Shiine Culey mid la wada sugayay meherkooda hadaba hambaryada kala duwan ee Ilyar Shiine Culey iyo Manaal ayaa ah mid si weyn dadku ay u jecleysteen kuna tilmaameen Shiine iyo Manaal in waqti xaadirkan ay tahay xilligooda loona baahan yahay in loo hambalyeeyo waxaana lagu tilmaamay Manaal iyo Shiine Culey kuwa gabiyahan waqti xaadirkan ka yaabsanaya bulshada iyo guud ahaan taageerayaasha maadaama Shiine Culey uu yahay shaqsi saameyn leh halka Manaalna ay tahay qof saameyn ku leh waxaana Manaal qofkii social media keena uu ahaa Shiine Culey kadib markii xaajigeedii hore ee Kinsike ay kala tageen baraha bulshadana uu dagaal ku kala dhex maray Shiine Culey iyo Sike ay keentay in gabiyahanba uu kala wareega gacanta midigna uu ku dhigo Manaal Shiine Culey taas oo keentay in mucaaradada xooggan uu kala kulmo Shiine Culey maadaama xaaskii hore ee Sike ay ishayeen baraha bulshadana ay iska dhaleeceyn jireen ugu dambeyn uu noqday Shiine Culey mid gacanta ku dhigay waqti xaadirkan jacayl ay u soo bandhigtay isagana uu ka aqbalay taas oo keentay in muuqaalo jacayl ay isla soo duubaan baraha bulshadana lagu faafiyo iyaga oo baashaalaya taas oo si weyn dadka dareen ahaan uga shakisiisay in Manaal iyo Shiine waqti xaadirkan ay yihiin kuwa isqaba maadaama arintoodii hore uu ku andacoon jiray Shiine Culey uuna sheegi jiray in abti uu yahay ay soo dhaaftay alamtara waqti xaadirkanna ay u muuqato in gabiyahanba Shiine iyo Manaal ay yihiin laba shaqsi oo iscalmaday baraha bulshadana saameyn ku leh waqti xaadirkana waxa ay sameynayaan ay tahay mid ay gabiyahanba bulshada ay wacdar uga dhigayaan taas oo ay doonayaan in saameyn ay ku yeeshaan baraha bulshada hadaba Shiine Culey iyo Manaal wacdaraha ay ka dhigayaan baraha bulshada waa mid si weyn loo wada arkayo laguna tilmaamay arinkooda mid gabiyahanba ay u bareereen iyo Shiine ay hayeen laba shaqsi oo isku xanto taas oo hore uu sheegay in Shiine Culey uu u yahay Manaal abti azaate dadku waxay ku tilmaameen in abtigaasi uu yahay abti xabiibi
oo damac guur iyo mid gayaanba uu dhex maray Shiina iyo sidoo kale Manaal, taasna ay keentay in muuqaalo romantiga kuwa jacayl ay waayadii ugu dambeysay isla soo duubaan. Dadkuna waxay hayeen kuwa uga sheekiyay in meherkooda hore uu dhacay, hase haatee Manaal iyo Shiina Culey arrintooda waxay yihiin kuwa mar walba baraha bulshada soo geliya muuqaalo gabi ahaanba maldahan oo aanay ku xaqiijinaynin nolosha dhabta ah ee Shiina iyo sidoo kale Manaal ee waqti xaadirkan ay wadaageen. Hase haatee dadka badankoodu ayaa aaminsan in Shiina iyo Manaal ay yihiin laba shaqsiyo oo isqaba, meherkooduna oo hore u dhacay waqti xaadirkana ay tahay in hambaryadoodu ay tahay waajib. Waxaana baraha bulshada muuqaalada kala duwan ay soo diraan ee ku saabsan Manaal iyo Shiina Culey ay tahay mid si weyn taageero buuxda ay uga heliyeen, dadkuna ay ku tilmaameen Manaal iyo Shiina in ay yihiin kuwa waqti xaadirkan saameyn leh maadaama arrintooda ay tahay mid dib u soo laabatay. Arrinta Shiina Culey iyo Manaal waa mid markasta bulshadu ay falanqeyso kuna tilmaamto in arrinta Abdi Xabiibi ay rumowday, maadaama waqti xaadirkan muuqaalada goosgooska ah iyo sawirada qarsoodiga ah ay soo wada gelayaan ee romantiga ah Shiina iyo Manaal ay tahay waqti xaadirkan mid tusaale iyo sidoo kale caddayn u ah in Manaal iyo Shiina Culey ay waa horeba aqalgaleen. Waxaana arrintooda ay ahayd mid saacadihii ugu dambeysay bulshadu ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen kuna tilmaameen arrinka Manaal iyo Shiina Culey mid la wada sugayay meherkooda. Haddaba hambaryada kala duwan ee Ilyar Shiina Culey iyo Manaal ayaa ah mid si weyn dadku ay u jecleysteen kuna tilmaameen Shiina iyo Manaal in waqti xaadirkan ay tahay xilligooda loona baahan yahay in loo hambalyeeyo. Waxaana lagu tilmaamay Manaal iyo Shiina Culey kuwa gabi ahaanba waqti xaadirkan ka yaabsanaya bulshada iyo guud ahaan taageerayaasha, maadaama Shiina Culey uu yahay shaqsi saameyn leh halka Manaalna ay tahay qof saameyn ku leh. Waxaana Manaal qofkii social media keena uu ahaa Shiina Culey kadib markii xaajigeedii hore ee Kinsike ay kala tageen, baraha bulshadana uu dagaal ku kala dhex maray Shiina Culey iyo CK ay keentay in gabi ahaanba uu kala wareega gacanta midigna uu ku dhigo Manaal Shiina Culey, taas oo keentay in mucaaradad xoogan uu kala kulmo Shiina Culey maadaama xaaskii hore ee CK ay ishayeen, baraha bulshadana ay iska dhaleeceyn jireen. Ugu dambeyn uu noqday Shiina Culey mid gacanta ku dhigay waqti xaadirkan jacayl ay u soo bandhigtay, isagana uu ka aqbalay, taas oo keentay in muuqaalo jacayl ay isla soo duubaan baraha bulshadana lagu faafiyo iyaga oo baashaalaya, taas oo si weyn dadka dareen ahaan uga shakisiisay in Manaal iyo Shiina waqti xaadirkan ay yihiin kuwa isqaba, maadaama arrintoodii hore uu ku andacoon jiray Shiina Culey uuna sheegi jiray in abti uu yahay ay soo dhaaftay alamtara. Waqti xaadirkanna ay u muuqato in gabi ahaanba Shiina iyo Manaal ay yihiin laba shaqsi oo iscalmaday, baraha bulshadana saameyn ku leh. Waqti xaadirkana waxa ay sameynayaan ay tahay mid ay gabi ahaanba bulshada ay wacdar uga dhigayaan, taas oo ay doonayaan in saameyn ay ku yeeshaan baraha bulshada. Haddaba Shiina Culey iyo Manaal wacdaraha ay ka dhigayaan baraha bulshada waa mid si weyn loo wada arkayo, laguna tilmaamay arrinkooda mid gabi ahaanba ay u bareereen.